mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo Galmudug oo ka qayb galay kulan looga hadlayay nabadda iyo weliba sidii maamulada ay u wadaagi lahaayeen waxyaabaha horumarineed ee deegaanada ka jira maadaama oo wadaag ay yihiin Galmudug iyo Puntland. waxaan u soo istaagnay inay miro dhasho oo meesha la geeyay meel ka sii wanaagsan ay tagto waqtiga iyo juhdiga aan ku bixinay oo odayaashu runtii base nagu ahaayeen dhalinyarada iyo aqoon-yahanka hooyooyinka iyo culamo diinka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ay garab nagu ahaayeen maamulkana uu hoggaan u ahaa waxaa ugu horeeya kow magaaladan inay u ekaato hal magaalo runtii hadda waxaan sii marnaa inaan dhibto magacyada loo bixinayo labada mas-uul oo ka kala socota gaalkacay Galmudug iyo gaalkacay Puntland. juhdiga labaad wuxuu ahaa dhibaatooyinka soo laalaabta oo shabaabka uu mas-uulka ahaa oo ayagu ay lahaayeen runtii maalgelinteeda iyo aragtideeda oo ahayd in bulshadaani mar walba isku dhacsanaadaan ayaduna xuduud beeneed ay ku dhex yeeshaan ay ku gambadaan ay meesha dhexdeeda ku lahaadaan in dhacdooyinka la xiriira qabiilka ama xoolaha la kala dhacayo dhulalka la isku qabsanayo waxyaalaha noocaas inaan waqti aad u gelina runtii dhiigagii iyo dhibaatadii dadkaas oo kala dhex martana aanan u istaagnay inaan culayskaas dhawarka u ridano. awalan ilaahay baa mahad iska leh noo suurageliyey in aanu helno nabadda quruxda badan mahadoo dhan ilaahay bay u sugnaatay waxaanu leenahay mar walba ilaalin ayay u baahan tahay nabad dhalin waan ka soo gudubnay waqti aad u badan iyo juhdi aad u badanna waa lagu bixiyey in nabad dhalin laga sameeyo gaalkacyo dhinac walba oo nabaddu ay khusaysay doorka maaragtay ilaahay inuu noo fududeeyey ka sokow cid walba door bay runtii ka soo qaadatay ilaa dowladaha Puntland madaxdooda iyo Galmudug ilaa jaranjarada ay ku timid degmada waxaanu isleenahay maamulada degmooyinku doorka iyagu ay lahaayeen bay qaateen sida maayirku hadda sheegayna waxa weeye in mushkilad walba oo ama laba shakhsi u dhaxaysay ama deegaan ha ku salaysnaato ama dhul ha ku salaysnaato ama aanan qabiil ha ku salaysnaato intaba in si hal mid ah uga wada qayb galaan waxay tahay dadku shacabkaahi isagu isma nabca waxna waa ka dhexdhici karaan laakiin waxyaalaha ka dhexdhaca waa wax iska fudud runtii balaayo qaangaar haddaad aragtid waxaa wata oo ay ka timaadaa dadka aqoon-yahanada dadka siyaasiyiinta dadka haddii la ku roon yahay culimada xageeda haddii la ku nasab sheeganaya dhinacyadaas ka timaadaa dadkii ilaahay hagaajinayana oo wanaagooda iyo haddii la ku masaaliixdooda ilaahay hagaajinayana hoggaan fiican buu dhiibaa dadkii ma taqaanaa halaag uu u sugnaadana hoggaanka ayaa ka xumaada marka annagu haatan aad baanu haddii la ku roon yahay dadka maamulka gobolka ka shaqeynaya aad baanu ula dhacsanahay ka gaaris ay ka timaado bulshada reer gaalkacyood amba reer mudug ama dawladda sare in mudug ay noqoto hal gudoomiye iyo hal gudoomiye ku xigeen oo hal member ay noqoto kalsoonida ma ku sii wada shaqeynaysaan mase reer qurac iyo reer qansaxa kala noqonaysaan